xildhibaan Cabdulqaadir Indho oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland oo maanta gudaha magaalada Boorama ugu waramay saxaafadda ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray in gobolka Awdal uu ku sugan yahay xaalad nabadgelyo darro ah tani bedelkeedana waxa uu Suldaan Wabar ugu baaqay inuu miiska wada hadalada soo fadhiisto tabashooyinkiisana wada hadal lagu xalliyo anigu ma arkayo nabadgelyo darro magaalada nabadgelyo darrada taala waxaad ka garataa dadkiisa oo deesaaka Hargeysa malaa intii ugu badnayd ee magaalada timaadaan wahayn wax dhibaato ah oo aan ku aragnay wadada iyo magaalada toona ma jirto laakiin media waan ka maqlaynay olaada arab iyo labadiisa daan baa isqabta sidii aynu awalba wax u xaliilan jirnay baynu xaliilanayna suldaankana waxaan leeyahay waxaanu fadhinaa rays magaaladana waan ku soo noqnoqon doonaa magaaladu magaalo education aqooneed bay ahayd magaalo nabadeed bay ahayd bini'aadmiga tabasho weligeedba way jiraysaa ilaa inta aynu dhimanayno tabashadu way soconaysaa laakiin waxaan leenahay aan ka wada hadallo wixii qaldan aynu gudaheena saxanno magaaladuna uma baahna colaad maanta dhismaha ka socdaan arkaya iyo sida kor ugu socoto nabadgelyo darradu waxa weeyaan iyo colaadu waa walaalo marka suldaanka waxaan leeyahay suldaankii nabadda noo noqo nagu soo noqo gabdhaha noo meheri tabashada aad tabanayso aan qaadna message-ka wixii garowshiyala aan kaaga garowno waxaan leeyahay sidaynu walba wada hadli jirnay inuu wada hadalno xildhibaan Cabdulqaadir Indho oo hadalka sii wata ayaa waxa uu lama huraan ku tilmaamay muddo kordhin iyo dib u dhac ku yimaada doorashada waxaana isagoo arintaasi faaleynaya uu yiri waxba dhici maayaan extension baa lagu jiraa transitional period baa la yiraahdaa xilligan oo kale waqtigii anagu aanu extension sameynay waxba kama harin waqti doorasho lagu qaban karo waa bil ama laba ay doono ma garanayo mid ay tahay extension ka dambe in laga wada tashado ayuun baa doorashada dib u dhigi kartaa hadii markaa waxaanay ku kalsooneen oo fara badan la sameeyana way kullu qiimeyniyaba ku jirto ka hor dhici maayo laakiin waxa weeye kii hore extension kii hore uu dhamaaday cid waliba ilmaha yar sabigaaba ogin la kordhinayo kordhintaas baa loo baahan yahay mid aynu ka fiirsano oo ka buuxsan ugu dambeyn ayaa xildhibaan Cabdulqaadir Indho waxa uu si cad uga hor yimid kacdoon ay ku baaqeen xisbiga wadani kacdoonkaas oo ka dhana xukuumadda xisbiga kulmiye waxaana isagoo naqdiyay uu yidhi hadduu kacdoon dhaco nabadgelyo darrana way imanaysaa waa walaalo waxa uu furan media waxa uu furan inuu gaaladii la hadlo waxa uu furan inuu hadduu doono Amnesty International la hadlo 150 meelood baa u furan laakiin masaakiin yar oo soo toostay oo magaxay haysatay iyo sariflayaal iyo dahablayaal iyo baana wax wada amaahiyeen oo waxay haystaanba meesha ay amaahiyiin in la jiirjiiro aniga ilama ahe ninkii mudaharaadaya magaalada dhinac intuu uga baxo halka ka soo mudaharaado dareenkiisa kabaradiina ka haysto Abdul Ali Yusuf Home Cable TV Boorama adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida